munaasabadan ayaa ahayd mid loogu dabaaldegay 6 sano guuradii ka soo wareegatay aas-aaska xarunta Safa Herbal oo aas-aastay Xafsa Cooking waxaana munaasabadani oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeeyaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Shakeyti gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir iyo sidoo kale haweenka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir sanatarka ka socday golaha aqalka sare munaasabadaas ayaa inta ay socotay waxa lagu soo bandhigay waxyaabaha ay sameeyso Xafsa with Cooking isla markaana ay u soo bandhigto bulshada Soomaaliyeed ugu horeen waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyadoo sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay marba marka ka dambeysay ay sameeyaan horumar gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ku faanaynaa Xafsa inay tahay gabar Soomaaliyeed oo runtii ah inay u iibgeyso inay soo saarto waxyaabaha gabdhaha Soomaaliyeed iyo ragaba ay maanta tartanka ay ugu jireen oo inta dukaanka la iibsanayay ayaan daawanayay qof walba dalabka dhankiisa ka dalbanayay sidoo kale dadkii halkaasi ka hadlay waxa ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Basma Caamir Shakeyti waxa ay tilmaamtay in markasta maamulka gobolka Banaadir ay garab taagan yihiin haweenka sameynaya horumarka haddaan nahay caasimada haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadaaneyti aadaan u soo dhaweynaynaa hambaliyada quruxda badan inay 6 sano gaarto waxa gaarsiiyay awoodeedii waxa gaarsiiyay maskaxdeedii waxa gaarsiiyay 6 sano inay dadka Soomaaliyeed ay fahmaan waxtarka ay leedahay wax soo saarka ay soo saarayso walaashay Xafso aadaan u soo dhaweynaynaa Xafso Senator Samsam Daahir Maxamuud oo kamid ah golaha aqalka sare ayaa dhankeeda halkaasi ka hadashay gabadheena Xafsa waxaan leenahay waa kaaga mahadcelinaynaa maalgelinta iyo dhiirigelinta iyo waxqabadka muuqdo maaragtay productiga aad soo saartay ee dabiiciga ah ee gabdhaha Soomaaliyeed anfacay dhan kasta ka anfacay hadii ahaan lahayd bilicda quruxdooda iyo hadii ahaan lahayd maaragtay in magacii gabdhaha Soomaaliyeed aa kor u qaaday oo aad gabar business woman aad tahay oo ku soo biirtay ama aad ka mid tahay maaragtay private sector-ka oo aad wadankeena u hormariyay sida aan ognahay oo qayb weyn ka qaatay waxaan leeyahay hambalyo sanad guuradii 6aad oo maaragtay loogu dabaaldegayo gabagabadii waxa halkaasi ka hadashay aas-aasaha xarunta Safa Herbal Xafsa Xuseen iyadoo sheegtay in ay guud ahaan gaarsiinayso xarumaheeda dalka oo dhan gabdhahaygii 6 sano aan maaragtay banaanka taagnaa YouTube-ka aan taagnaa oo aan wacyigelinta sameeyay ugu xirnaa kulligiin aad u mahadsantihiin jacaylka iyo walaaltinimada iyo loofka iyo waxa ay tustaan waa ku mahadsantihiin waxaan kaloo maaragtay idinka mahadcelinayaa mar kasta sida aad alaabta Safa Herbal aad iigu soo taageertaan iigu soo jawaabtaan idinkoo lacag bixiyo sidii free idinku sii ay iigu soo duceysaan markasta ducadiina iyo walaaltinimadiina iyo xurmadiina meeshan ku joognaa ay businesska ku weynaatay waa mahadsantihiin Muqdisho alaabta idin taala Hargeysa taala North America dhanbay taala ma sha Allah waa weynaanay company weyn u noqday because of you gabdhaha Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maaragtay congratulations aan leeyahay because qayb ka tihiin company-gan horumarka uu sameeyay qayb ka tihiin Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho